idin soo deeyo idinkana aad daawatiin idinkana quluubtiina sida ay noqonayso daawashadana inaa igala qayb qaadataan ayaan jeclaan lahay. marka hadda waxaan jeclaan lahay inaa igula soo dhawaatiin. Soomaaliya dhibaatada haysta waxa ay ku jirta in ka badan ama si ku dhow 30 sano oo buura. waxa ay in badan oo Soomaaliyeed ku faraxsan yihiin nolosha ay haystaan. qaar kale oo inta ka badanna ay habeenkii la seexan la yihiin waxyaabaha Soomaaliya ka dhacaya ama xaaladda ay Soomaaliya ku sugan tahay. khaasatan aniga iyo dad badan ee Soomaaliyeed kama seexan karno ama se kuma jiri karno xaaladdan cakiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan rabaa horta waxaa idin dhihi lahay marka ugu horeysa Soomaaliya adduunka daafihiisa meel allaala meesha ka joogtiin salaanta muslimka ayaa idinku salaama. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka maanta warkaan meeshaan aan ku hayo waxay tahay horta yaraan saaxiibanahnay ayaa jiro oo meesha aan deganahay gobolkan deganahu ila degan yahay anigii asaga kubadaan wada dheelnaa saaxiibana waan nahnay ma garatay. laakiin video oo maanta oo soo geliyay ayaan daawaday videogaas marka waxaan ku arkay qiiro Soomaaliyeed dabeecadda iyo kulli waxay Soomaaliyiin sida iskula qubweyn yihiin iyo haddana wuxuu leeyahay waaba Soomaali jiri jirtay ayaa la dhihi doonaa. marka haddana waxaan jeclahay inaan waxyar igala qayb qaadatiin yarkan saaxiibkeygii magaciisa waxaa lahaa Muscab. YouTube-kana waa videoga ugu horeeyay uu soo geliyay weligiis laakiin YouTube uu lahay waa videoga ugu horeeyay uu soo geliyay laakiin war xasaas oo waxa waaye oo qofka dhiig Soomaali damiir Soomaali ku jiro waxbuu dareemaa. marka inaa waxyar hadda aan jeclahay idin soo deeyo idinkana aad daawatiin idinkana quluubtiina sida ay noqonayso daawashadana inaa igala qayb qaadataan ayaan jeclaan lahay. marka hadda waxaan jeclaan lahay inaa igula soo dhawaatiin. Soomaaliya dhibaatada haysta waxa ay ku jirta in ka badan ama si ku dhow 30 sano oo buura. waxa ay in badan oo Soomaaliyeed ku faraxsan yihiin nolosha ay haystaan. qaar kale oo inta ka badanna ay habeenkii la seexan la yihiin waxyaabaha Soomaaliya ka dhacaya ama xaaladda ay Soomaaliya ku sugan tahay. khaasatan aniga iyo dad badan ee Soomaaliyeed kama seexan karno ama se kuma jiri karno xaaladdan cakiran ee wadankan iyo dadka haystaba ay ku faraxsan yihiin in ay Soomaaliya saa ku socoto. waxaa hubaal maantay in ay Soomaaliya ay heer gaari karto waqtigii doontaba ha ku qaadatay. waxaan ogsoonahay dad badan oo Soomaaliyeed oo mutacallimiin ah arday ah dad wax soo bartay baranayana ah in ay ka niyad sameen in ay Soomaaliya wax iska bedesho in ay isdhiibeen oo ay isku dhiibeen xaaladda ay maanta taagan yihiin iyo cadowga banaanka iyo gudahaba. laakiinse waxaa kaloo jira dadyow kale oo iyagu raba ama si aan ka quusan karin in ay Soomaaliya saa uga tagaan. qofka xaqiiqdii jecel wadankiisa hooyo ee Soomaaliya ma ahan mid ku raadsanaya quutiyomkiisa. waa mid ogsoon in noloshan ay tahay waqti. waa mid ogsoon in ay tahay noloshan hadiyad uu Ilaahay u siiyay dadkiisa bini'aadamka ah gaar ahaan iyo guud ahaanba. laakiin se loo baahan yahay
inaynu kaga faa'iidaysano wixii dhab ah, inaynu kaga faa'iidaysano xaqiiqda maanta ee caalamka ka jirta. haddiise laakiin aan u seexano annagu anaan isku dayin inaan waddankeena hooyo kabo aan ka bedelno oonaan isu dhibno cadowgeena bannaanka ah iyo kan gudaha ahba, waxaynu ku dambayn doonaa inay taariikhdu ka sallayn doonto Soomaali ayaa halkaa deganaan jirtay, Soomaali ayaa waddanka maamuli jirtay, Soomaali ayaa taariikhda ku lahayd, Soomaali. laakiinse haddii aanan maanta isdhiibin oo aan horumarino iskulana shaqeyno qalbiyad furan ama quluub wanaagsan oo saafiya, walle waxaan gaari karnaa caalamkana aan tusi karnaa wax aan hore u dhicin, soo laaban karnaana mar taariikhduna ay qori doontaa wanaageena iyada oo ka tirtiri doonta xumaantii 30 sano ee ugu dambeysay ugu dhacday. xumaan qabyaaladnimo ku salaysan, xumaan argagixisanimo ku salaysan, xumaan la isku keendirayo, xumaan uu cadowgeennii awood ku yeeshay, xumaan ay dad badan ku faraxsan yihiin in ay maantay waddankeena usa ahaado, xumaan taariikhda afrikaannimo ahaan nala ka waayay. waxaan ogsoonahay kolka aan Soomaaliya joogno ana iskuulaadka aan dhigano in ay dadka badana ay Soomaaliya u haystaan in ay tahay Afrika meelaha ugu wanaagsan, anagoo badankeen dad yooga kale ku cayna sida ay nooga midab duwan yihiin. iskuulana wanaagsan meesha aynu maanta caalamka joogno, haddii ay noqoto dhan amni ama military ama awoodnimo, caalamka waxaanu kaga jirnaa meesha ugu dambaysa. iska badaa caalamkaba, qaaradan yar aynu ku noolnahay ee Afrika, waxbarasho waxaynu kaga jirnaa meelaha ugu hooseeya, laakiinse waxaynu nahay dad waxbarashada ku fiican. sporti waxaynu kaga jirnaa caalamkan meesha ugu hooseysa annagoo ah dad sportiga ku wanaagsan. waxa ay tahay wax laga qiiroodo ama si aan lagu farxin habeenna si wanaagsan loogu seexan xaaladda aynu maanta aynu taaganahay, xaaladan cakiran ee wasakhaysan ee abaarta iyo boorka uu ka muuqdo waddankeena hooyo maanta uu ku jiro, xaaladan aynu iska bedeli la'nahay oo in badan oo naga mid oo siyaasiyiin ay ku faraxsan yihiin, marna Addis Ababa ka degayaan marna Nairobi ka degayaan, iyagoo iskula haysta inay caalamka bannaanka ugu baxeen, Soomaaliyana ay baasaboorka sitaan. taas dooni mayno. waxaana ballan ah haddii ay Soomaaliya maanta ay ka dhalato dowlad cadaalad ah oo cadaaladda ku shaqeynaysa una danaynaysa waddankeeda hooyo, in qof walba oo dambi ka gala bulshada Soomaaliyeed maxkamadda ay iyadu leedahay soo hor istaagi doonto. waxaa wax laga qiiroodo ah in Soomaaliya ay iska ilowday jiilkeeda, ama sidii ay u soo dhisi lahayd jiil wanaagsan oo u bedela jiilkan maanta hadda jooga. laakiinse way imaan doontaa waqti uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu siin doono wixii uu noo qoray. qaxootinimadana adeer waa waqti Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo qoray mar uu naga saari doono. aad ayaan idin salaamayaa. fi amaanillah. way la daawateen. marka horta maanta markii aan daawaday, horta wiilaa aan saaxiibo aan ahay dhowr marna YouTube-kay ku aragteen aan u maleynaa, maxamed yar la dhahaa, yarkaas ayaa ii soo diray. markii maanta hurdada aan ka toosay waan fiiriyey, ilaan yarkan waa Muscab waan garanaa. marka waxaan isdhaa marka maanta Muscab muxuu ka hadli doonaa,
maxaa yeele nin ani aan garanaya waa horta iska afgaaban oo iska aqyaar ah, kubadna intaasoo sanaan wada dheelayn, laakiin asoo dad la dagaalaya ee isxaganaya weli ma aan arag. laakiin wuu iska kaftan badan yahay, wuuna iska soomaali jecel yahay. laakiin maanta markii aan arkay waxaas la iisoo tuuray videogiisa, waan maskaxda inaan ka shaqaysiyaa, waxaan dhaha war wallaahi wuxuu ka hadlaya waa run. haddana maantana kubadaan soo wada dheelnay, meesha kubaddaan ku wada kulannay, waan qiirooda wallaahi. maxaa yeele waxaan ku qiiroonaa dad waxaa jiray la dhihi jiray haddaad taqaanin cusmaaniyiinta ama haddaad taqaanin farisiyiinta, romaanka, magacyadooda lama sheego, runta daa laga hadlo. hadda xataa anaga taariikhyada inaysan qorin laga yaabo, waxyaala anaga adduun la waaye laga yaabo inaana anaga arag, runna waay. maxaa yeele anaga waana la kala gadanaa. soomaali horta wadani ma ahan, runtan ka hadlaa, wadani ma ahan. inta soomaali anaan garanayo wadaadkooda ugu weyn, xataa wadaadkooda ugu weyn wallaahi qabiiloo la buka, wallaahi maxaa ka weyn qabiiloo la buka, qabiil ma aragtay oo la bukaa. laakiin maanta qabiil horta adduunkan lagu sheegaya waa ayaam macduudaad, ma garateen? marka ayaam macduudaad waxaa laga wada waa wax kooban. war maanta cunugii maanta la dhalo iyo adigoo 100 sano ama 1000 sano aa ku dhimatay, cunugana oo noolaay saacado, adduunka intuu ka qaatay adoo ka qaadatay lamid tahay. adduun horta wuxuu yahay male, ma garatay? laakiin ina hebel war adigaasaan kula hadlaa soomaaliyo. marka adiga aa xanuunsan tahay, adiga waaba xanuunsan tahay, qof ina hebel oo kuu imaanaya xanuunka wax kaa dhiibaya ma aragta. war boqolaalo ayaa aragna Soomaaliya, anaga markaan joognay Muqdisho aan degnay, boqolaal isku qabiile eeyin, qabiilkaana oo iska dhaqayaan, qabiilkan kalena oo isku qabiil la eeyihiin, laakiin ay ciidan kalena aysan dhaqnin. ciidan way dhaqantaa, ciidan kalena ma dhaqno, wax ay u geen jireen xataa male. laakiin afkaa qabiil laga yahay, runtaan ka hadlaa, afkaa qabiil laga yahay. marka qurbahanna waxaan ku aragna horta waxaana anaga dalka aana ku arag. qurbahan qabiilka ugu weyn qurbahan u yaala. war waxaana aan ka tilaabsano, war aan ka hormarno. soomaaliyay hurdada ka kaca. mar ayaa waxaa la dhihi doonaa Soomaali mar bay jiri jirtay oo waddankeena la kala qaybsaday, ama qoomiyada kale ee iska haystaan. Mareykanka xataa ka soo qaad, USA waxaa lahay qola la lahaayo Indianimia, hadda miriqdooda yaa arkay. Australia sidoo kale miriqdooda lama hayo. Soomaali meesha u socotana way baaba'e, runta idan sheega. weygan ay ku socoto hadday kusii socto way baaba'e. marka ninkan walaalkeena wuu ku mahadsan yahay. horta ani waan Soomaali jeclahay, inta i taqaana waaba i taqaanaaba. dalkii haddaa laga soo gudbo qurbaha intaan ku noolaa, inta i taqaana waa i taqaanaa. adduunka qabiila ugu nacbanay, ma jecla qabiil, runta idan sheega, ma garateen? marka maanta casharkan walaalkeena Muscab oo noo dhigay, horta YouTube-kiisana waxaa ugu qoran IC official, ama sida u taqaanin I iyo A official aa ugu qoran. marka yarkaanna waa daawan kartiin, waxyaalo barnaamijyo badanna inuu keeni doonaan ka dhursugeena hadduu ilaah hadduu raali ka noqdo. marka Soomaaliyey war qalbigiina isku furnaado. ilaahayna hore wuxuu u dhahay weliba inaan soo qaadano, innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa. qofkuu ilaahay doono ayuu hanuuniyaa, qof kalena oo ilaahay doonin ma hanuuninayo. marka ilaahay waxaan ka baryanaa waddankeena waddan wanaagsan hadduu ilaahay noogu dhigayo, oo aan sii jiri doonno inay Soomaali mid ay noqoto. haddaysa jiri dooninne xag ilaahayba ka qoran tahay, waxba kama qaban karno, waxba kama qaban karno, xag ilaahay ka qoran tahay. laakiin Soomaaliya isku qalb furnaada, isjeclaada. anigana haddana meeshaas ayaa idin kaga baxa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.